deegaano hoos yimaadaha degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa waxay wararku sheegayaan in saaka aroornimadii ay soo gaareen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana ay dib uga laabteen qaybihii ka soo gaareen deegaano hoos yimaada ee tuulada Coomaad oo u dhow kana saaran koonfur galbeed magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan. haddaba xaggee ay ku sugan yihiin qaybihii Al-Shabaab ka tirsanaa ee soo gaaray deegaanka Coomaad iyo deegaanada galbeedka degmada Matabaan. wararku waxay sheegayaan in Al-Shabaab dib uga laabteen deegaanadii ka tirsanaa Matabaan oo ay yimaadeen, hase ahaatee ay ahaayeen xubnaha soo gaaray deegaanada u dhow Matabaan iyo duleedkeeda xubno sahan ah kuwaasi oo doonaya in ay halkaasi ka sameeyaan fariisimo waaweyn islamarkaana qorsheynayaan inay qalqalgelin amni ku sameeyaan inta u dhaxaysa beergadiid iyo Matabaan, iyo sidoo kale iyagoo doonaya in ay gudaha u soo galaan magaalada Matabaan sida laga xigtay iro u dhadhow deegaanada ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab. sidoo kale Al-Shabaab waxa uu magaalada Matabaan iyo laamigan dheer ee xiriiriya gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya uu muhiim ugu yahay in marka ay tahay goob istaraatiiji ah islamarkaana ay doonayaan inay halkaasi dhigtaan isbaaro ay gaadiidleyda lacaga kaga qaadayaan, iyagoo markaa wadadana kala goynaya isku xirtaa gobolada Hiiraan iyo Galmudug. waxayna sidoo kale ay doonayaan in ay fariisimo istaraatiiji ah ka samaystaan. Al-Shabaab ayaa doonaya in degmada Matabaan iyo deegaanada hoos yimaada ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan kuwa oo ku aadan in ay markaa gudaha u galaan deegaanada Galmudug, waxaana markaa ka warhelaya lamaha ammaanka maamulka Galmudug ee dhaqdhaqaaqyada ururka Al-Shabaab, iyadoo markaa la rajeynayo in maamulka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ku sugan ee gobolka Hiiraan iyo qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud ay sameynayaan howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo kusoo siqaya gobolada Galgaduud iyo sidoo kale waqooyiga gobolka Hiiraan oo ugu weyn tahay degmada Matabaan ee gobolkaasi.